soo dhawaa saaxiibayaal muuqaal ayaan rabaa inaan idinla wadaago. Muuqaalada aad halkan ka daawataan waa muuqaalo badanaa ka hadla dhaqanka wax ku saabsan. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago howlo la qabto miyiga. Howlaha ugu adag waa hawsha looga soo saaro dhulka miraha. Aad aragtaan mirahan, qofkii garanaya commentiga nooga soo qoro. Waa miro dhulka laga soo saaro. Weliba waxa waaye miro howl badan laga maro oo inta isugu yimaadaan dadku ay maalinkaasoo dhan ka shaqaynayaan oo dhulkii inta si fiican loo xaaro oo ciiddii bacaadka ahayd laga dhammeeyo, marka gawaan laga dhigo, meel maaragtay aan ciiddeedu aysan badnayn laga dhigo, kadib haddana howl kale laga sii qabto oo maaragtay inta lasoo qaato ulo lala dhaco. Oo maalinkaasoo dhan shaqada waxaa la dhihi karaa looma kala harayo. Caruurtii iyo dadkii waaweynaa intaba hawshaas way qabanayaan. Miraha ka soo baxa dhulka maaragtay xilli roobaadka laga howlgalo marka roobka uu maaragtay joogsado, mirihii dhulka ku jiray ay qalalaan oo cawskoodii dusha sare laga arkaya isna uu qalalo. saa aragtaan markaas kadib ayaa laga howlgalaa. Marka intiina garanaysa waaye hore ay ugu dambeysay, inta mar dhow ay ugu dambeysay, intaan garanaynba waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad ku ogaataan bal hawsha laga soo maro mirahaas. Waxaa la yidhaahdaa gocso. Marka gocosada sidaana looga shaqeeyaa, dhulka ayay ku jirtaa. Waa miro maaragtay kuwa la cuno maaragtay dhulkeena ka baxa. Waxay ka qayb ka yihiin kuwa ugu macaan ee la cuno. Gocosadana dhowr nooc ayaa loo cunaa oo maaragtay mar waxaa loo isticmaalaa sida soorti oo kale, waa laga dhigaa. Marna miraheedii ayadoo ahaba subag ari inta lagu daro sidaas lagu cunaa. Marka qaabkaas waxa dhulkaas aad aragtaan laga qodayo oo laga soo saarayo waa miro. Haddaad weligaa aadan maqal ama aadan arag miraha gocosada iyo sida looga shaqeeyo, videogan wuxuu noqon doonaa videogaagii aad ku baran lahayd gocosada iyo sida loo soo saaro. Shaqadan marka la qabanayo waxay noqonaysaa in maalinkaas la diyaariyo dadkii ka shaqayn lahaay oo xaafadda dadkii joogay, gabdhihii, wiilashii, waalidkii, intaba inta laiskugu yimaado maalinkaas laga howlgalo. Meesha gocosadu ay ka baxdana waa meel la wada yaqaano oo lasii sahmiyey oo lasii ogyahay oo la leeyahay berrinkaas halkaas ku yaala waa berrin gocoso leh, oo waqtiga ay gocosadaasi qalasho oo in lasoo saaro ay u diyaar garowdo ayaa howlgalka la sameeya. Marka saa aragtaan ciidda iyo mirihii iyo isku jira ayaa saxan inta lagu shuba kor laga soo daadinaya. Qof baa la istaagaya oo saas usoo daadinaya. Markaas waxay noqonaysaa way kala soocmayaan, ciiddii iyo mirihii baa kala soocmaya. Waa habka lagu kala sooco. Waxaa laga yaabaa dadka qaar inay is yiraahdaan waa maxay maaragtay mirahan dhulka ku jira oo maaragtay weligood inaysan arag laga yaaba. Marka gocosada sidan ayaa looga shaqeeyaa. Reer miyigu waxay u tahay gocosadu qayb ka mid a waxa ay maaragtay nolol maalmeedka shaqooyinka ay qabtaan ayay ku darsadaan. Xilliga barwaaqada marka gocosadu ay soo baxdo iyadoo caws ahaan usoo baxaysa, cawskaas xooluhu hadday daaqaan ama xoolaha xitaa waa laga ilaaliyaa. Waxaa la sameeyaa meeshaas qofkii maaragtay awooda sida beertii oo kale ayaa loo xiraa oo waxaa laga dhigaa meel xiran oo beer ahaan loo xiro. Halkaas ayaa marka lagu ilaaliyaa oo ilaa ay ka qalasho. Markay qalashana sidan oo kale hadda aad aragtaan ayaa looga howlgalaa oo subaxaas waxay noqotaa maalin howlgalka gocoso soo saarista ayaa la yirahdaa. Marka howlgalkaas subaxaas waa cajiib.
marka hawsheeda horta way dhib badan tahay oo hawl aad u dhib badan oo maanta dhan qoraxdiiyo dusha kulayl ka ah oo kor ka haysa hoos ciidiyo iyaduna sidoo kale kulul hawl noocaas oo kale ah maaragtay qofka soo wajahaysa laakiin marka inta shaqada lasoo dhameeyo xaafadda la yimaado haddana waxa waaye waa laga sii shaqaynayaa oo ma dhowa dubkeeda sida dubka looga saaro oo dusha sare waxaas aad aragtaan dad qaar kor waxaad markaad uga jeedo waxaad moodeysaa markiiba digada xoolaha digada xooluhu ay dhigaan ayaad moodeysaa asleeda waxaan diga ariba laakiin marka aad aragto aad dareemaysaa inay yihiin miro la isticmaalo marka saas aragtaan waa mirahaas waa la haadin baa lagu samaynayaa in ciiddii ayagii la kala saaro oo shaqada isla meesha markaas ay ka baxday oo laga qoday isla meeshaasaa lagu kala hagaajinayaa markaas baa waaratay jawaan lagu shubayaa kadib gurigii iyo halkii reerku deganay lala tagayaa halkaas baa marka haddana waxa kasii bilaabanaya shaqo kale oo ah maaragtay in la dubo waa la dubaa iyadoo sideedana oo qobkan lah baa la dubayaa markaas la duba kadib ayaa haddana laga sii shaqaynaya waxaa lagu sameynayaa in gocosadii inta la dubo jawaan lagu shubo kadib dusha sare haddana ula lagala dhaco oo ulahaasi marka waxay fududaynayaan markiiba in qobkii uu maaragtay iyo mirtii ay kala foqaan sidaasaa marka looga shaqeeyaa videogan waxaan ugu talagalnay inaad ku barataan gocosada iyo sida reer miyigu ay usoo saaraan muuqaal kale ayaan idiin soo wadnaa oo aan uga hadli doono gocosada sida cun ahaan loogu diyaariya hadda waa habkii loo soo saaraye marka waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan ka hesheen daawadayaal saaxiib yaal waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalada halkan aan soo dhigno aad sii sheer garaysaan oo dadka dhaqanka iyo waxyaabaha miyiga nolosha miyiga aadka u xiiseeya aad u sheer garaysaan si ay noola daawadaan waa mahadsantihiin waxaan idin leeyahay waqtigu ha idin wacnaado aad baad u mahadsantihiin